gabdhaha kubadda gacanta ee Heegan ayaa kulan ciyaareedkii xiisaha badnaa ay la yeesheen kuba horseeda waxa ay ka gaareen gool wacan kulankaasi oo ka dhacay garoon kubadda cagta ee Wish Stadium hadaba kulankan ayaa wuxuu qayb ka ahaa horyaalkii sideedaad ee gabdhaha kubadda gacanta waxaana kulankan uu ahaa mid lagu soo gabagabeynayo wareegga koowaad ee tartanka kubadda gacanta ee ka soconaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayadoo ciyaarteed mid aad u xiiso badan ay ka soo qayb galeen taageerayaal aad u fara badan ee labada dhinac ee Heegan iyo Horseeda waxaana inta badan si weyn ugu dabaaldegay awoodoodana ay muujinayeen gabdhaha kubadda gacanta ee Heegan oo awood fara badan u sheegtay kuba Horseeda waxaana inta badan muuqanaysa habacsanaan iyo daal aad u fara badan oo ka muuqday gabdhaha kubadda gacanta ee Horseeda oo laga faa'iideystay waxaana gabdhaha kubadda gacanta Heegan ay la yimaadeen 19 halka Horseed ayna la yimaadeen 8 waxaana gabdhaha kubadda gacanta ee Heegan oo kulankan uu ahaa mid ay guul ay ku soo xireen wareegii koowaad ee horyaalka sideedaad ee kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya haddaba ciyaartu markay ay soo gabagabooday ayaan wareysi la yeeshay macalinka hogaaminayay kooxda gabdhaha Horseed iyo sidoo kale kabtanka kooxda kubadda gacanta ee Heegan oo dareenkooda ka warbixinaya iyo siday u arkayeen ciyaartan xiisaha badneed ay isku arkeen horyaalka sideedaad ee kubadda gacanta Cabdiraxmaan Faayire loo kasaayo kabtanka naadiga Heegan farxadeena maanta aad lama soo koobi karo guushan aan gaarnay waa dadaalkeena badnaa ee gabdhaha aan soo gaarnay macallimiinteena oo garbaha naga taagnaa wiilasheena oo gaarka garbaheena taagnaa sidaas darteed ayaan ku soo gaarnay guushaneed aad iyo aad ayaan u faraxsanahay tan kale waa ciyaar markasta saano kale u dhacdo la isaga hor imaado mar walbana qofkeena si bilaa ayaa guushi gaartaa laakiin maalintii handballka la bilaaway sanadkii la bilaaway ilaa just now koobka waan qaadnaa anaga aan heesano waan rajeynaynaa hadda inaan qaadno waa mid aan ku jiifno kuna soo kacno guusheedana mar walba aan rajeynayno marna dhinacaan dhulka loo dhigin maalintii handballka la bilaaway ilaa just magacayga Saciid Maxamed Sheekh Saciid Bootaale sida aan rajeynaayo ciyaarta maanta meesha ka dhacday ciyaar aad u qurux badan ay heday sida kubadda wacad iyo madow waana laga badiyay wax dhibaato ay leedahay malaha sanadkii hore basaan oo kale Horseeda badisay toornayadii Heegan labadaba way isku dartay insha Allah waxaan rajeynaynaa sida hadda ciyaarna wax ka soo bedelno guushana waa labada dhinac meel maraysa maanta waana loo guuleystay insha Allah anagana markayna guuleysanaysan aad u mahadsantiin